dhibaatooyinka ugu waaweyn ee casrigani dadka badankoodii ay ka cawanayaan mid ka mid ah waa taxadar la'aan. waxaa ku adag dadka in waqti ay geliyaan waxyaabaha juhdiga, fakarka ama taxadar ka badan u baahan. bilcagsi waxa ay dadku jecel yihiin ama ay u janjeeraan waxyaabaha sahlan ee sida dhib la'aanta ay ku qaban karaan. tusaale, waxaa suurtagal ah in badan oo inaga mid ah dadka muuqaalkani daawanaya in ay ku adag tahay in maalin walba in buug ay akhriyaan. ugu badnaan 10 daqiiqo kadib akhrinta buugga waa ay ku adkaataa qofka, kadibna caajis ayuu ka qaadaa. problemkanina buugga oo keliya ma aha, wax waliba oo u baahan juhdi, haddii ay noqoto shaqo subax walba loo kalaho, haddii ay noqoto fakar, falsafad iyo waxyaabo kale oo badan. dadka badankoodii ma jeclo in waxyaabahani waqti ay geliyaan. haddii xitaa ay isku dhibaan iyaga oo kiraasanaya waqti ay geliyaan, ma aha wax ku soconayo oo ay sii jeclaanayaan in ay sii raacraacaan. dadka sidani ah marka social mediaha ay noqoto, waxa ay awoodaan musalsal dheer in hal fadhi ay ku dhamaystaan, ama waxa ay awoodaan qof cinwaankiisii ama sawiradiisii social mediaha ilaa 2 sano in dib ay u baaraan, iyaga oo xitaa hal mar aanan ka caajisin. laakiin waxyaabaha ka baxsan social mediaha, qofka marka uu isku dayo in uu qabto durbaba caajis ayaa dib ugu soo noqda. haddaba muuqaalkani waxaan ku falanqayn doonaa problemka dadkani oo dhan haysta, halka uu uga imaaday iyo sida isaga daaweyn karaan. asal ahaan bilowgiiba dadku waxa ay u kala qaybsan yihiin dhowr qaybood, iyada oo sidaa ay tahay haddana waxaa dadka loo sii kala qaybin karaa 2 qaybood oo waaweyn: kuwa emotionally ah oo dareenkoodii uu hogaamiyo, iyo kuwa maskaxda qaybta fakarka ay hogaamiso. waxa ayse dadka badankoodii u badan yihiin kuwa maskaxda dhanka emotionaliga ka shaqeeya. waaba sababta xitaa qur'aanka kariimka in badan uu u leeyahay walaakina akthar annaasi laa yaclamuun. dadka badankoodiina kuma ay waana qaataan aayadaha alle, weliba iyaga oo fahmay. sideediiba dadku waxa ay nolosha ku fahmaan fakarka iyo su'aal isweydiinta. fakarka iyo su'aal isweydiintuna waxa ay qofka ku xirtaa waddada toosan in si degdeg ah uu ku helo. dadkani maskaxda qaybta fakarka ay hogaamiso, waxyaabaha ay indha-indheeyaan ama xaqiiqada ay ogaadaan ayay kalsooni iyo farxad ku helaan. badanaana dadkani waxa ay jecel yihiin waxyaabo horumara, sida qofka wax in dhulka uu ku soo kordhiyo, ama sistamka dunida in uu wax ka bedelo, ama in qofka ugu yaraan waxyaabahani ka doodistoodii ama aqriskoodii ayuu farxad badan uu ka helaa. waxyaabaha intaa ka soo harana oo nolosha bani'aadamka iyo dunidaba waxba aanan ku soo kordhinin, waxa ay dadkani u arkaan maalaayacni iyo waxyaabo qiimo aanan la lahayn. qaybta kale ee dadka, gaar ahaan kuwa maskaxdoodii qaybta emotionaliga ay hogaamiso, iyagu waxaa aad u farxad geliya amaba ay ka helaan waxyaabaha aadka u fudfudud ee u muuqda, sida 2 qof oo isdagaashay, natiijada ka soo baxday 2 qofood dagaalkoodii, iyo sida 2 qofood xilliga dagaalkoodii midba midka kale sida uu reactionkiisii uu noqday. si fudud ayaa dadkani dareenkoodii loo kicin karaa bilaa sabab, si fudud ayaa haddana dadkani maskaxdoodii wax loogu shubi karaa bilaa xujo. waa dad ku qiirooda si dhabah, weliba filim khiyaali ah oo la qoray, jilitaankiisuna laga soo shaqeeyey, si kas ahna loo saaray muusig ku habboon oo dareenkoodii kicin karta. sidaasi oo kalena waa dad jiliin oo keliya dareenkoodii lagu kicin karo. si kooban, filim soo saaraha waxaa la oran karaa waxa uu haayaa furaha maamulka maskaxda dadkani. qaybta uu rabo ee filimka ka mid ah ayuu qiiro dadkani u saari karaa, qaybta kalena isaga oo kaga oysiye ayuu qaybta kalena dadkani uu kaga xanaajin karaa. iyada oo sidaa ay tahay haddana dadkani heerka fikir la'aantoodii filimka ayay daawashadiisii lacag ku sii bixiyaan. saacado badan ayayna sugaan ilaa uu ka soo baxo. filim inta aanan la jilin ka hor qoraalkiisii la alifay, goobta jiliinka, jabiga xilligaasi, nooca labiska lagu jeli doono,
codadka dusha laga saari doono iyo muusikada waxyaabaha oo dhan in khiyaali ay yihiin isma ay weydiiyaan danna kama lahan in ay ogaadaan in khiyaali uu yahay ama in kale amaba qaabka loo jilay ujeedkoodii oo keliya waa in jebiga daawashada ee filimka in ay ku raaxaysanayaan sida waxa ay u shabahaan qof xaqa uu u muuqdo balse waddada hanuunka aanan qaadanin waayo waxa ay og yihiin filimka in khiyaali uu yahay jiliin waxyaabaha oo dhan in lagu sameeyey laakiin waxa ay ka doorbidayaan saacadaha kooban ee filimka uu socdo muudka farxadda ama qiirada ama jaceylka oo ay geli doonaan si kooban dadkani waxyaabaha ay sameeyaan hadba waxa ay ka fiirayaan in ay raaxo ay ka helayaan ama in kale qodobkani raaxashada ayaana inoo ah qodobka lafdhabanka u ah muuqaalkani waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso dadkani aan kuu soo sheegay waxa ka qaldan iyo sababta ay sidani u samaynayaan asal ahaan ma aha dadkani dad ka duwan dadka kale balse qaabka ay maskaxdoodii ay uga shaqaysiiyaan iyo waxyaabaha ku socda ee farxad geliya ayaa ka duwan dadka kale dadkani waxa ay jecel yihiin waxyaabaha kookooban oo waqtiga farxad gelinaya oo jebigoodii oo dhan nashaad iyo qosol ka dhigi kara haddii aan dib ugu noqono tusaalihii daawashada filimka inta uu filimka dadkani uu u daaran yahay madadaalo haddii ay noqoto qosol farxaddii hormoon diboomiin ah oo aad u badan ayay maskaxdoodii soo saartaa hormoonkani ayaana dadkani aad uga farxiya haddii hormoonkani dhiigoodii uu ku bato farxadoodii iyo dhegaysigoodii ama daawashadoodii ayaa aad u korodha xitaa haddii shaqo ay qabanayaan shaqada xilliga ay ka dhammaatay ma ay dareemaan waxa ayna noqdaan dad nashaada xilligaasi balse haddii hormoonkani uu ku yaraado dhiigoodii caburnaan caajis farxad la'aan zaa'id ah ayay dareemaan si degdeg ah wax farxadda u soo celin kara khaasatan diboomiinkani farxadda wax dib active uga dhigi kara ayay raadsadaan waayo dadkani waxa ay ku shaqeeyaan mekaaniisamka is-abaalmarinta degdega in badan oo dadkani ka mid ahna maanta waxa ay ku dhiban yihiin waxyaabo badan oo nolosha juhdi iyo fakar uga baahan gaar ahaan bug akhrinta ama dhagaysiga muxaadarooyinka dhaadheer xitaa iskaba dhaaf dhowr sano ka hor raadiyo ay in badan dhagaysan jireen laga yaabee in saacado ay sugaan sheeko kooban oo maqal ah oo raadiyaha ka soo gasha in maanta sidii hore inaysan u dhagaysan karin su'aalaha in badan la weydiiyey aqoon-yahanadu mid ka mid ah waa cabashada in qofka buug uusan akhrin karin caajis joogta ah iyo hurdo in durbaba ay qabato waxa uuna qofka sidaa uu ku raadiyaa talooyin u sahlaya sidii uu dib ugu guulaysan lahaa dhaqankii wanaagsana ee buug akhrinta ama dhaqanka wanaagsan ee waxyaabaha caajiska oo dhan kaga qaadi kara balse isma uu weydiiyo maxaa sidani ka dhigay soo ifbixidda aaladda internetka gaar ahaan social mediyaha waxyaabaha bani'aadamka uu ka dhaxlay waa caajiska degdeg in qofka uu wax ku rabo akhris la'aan fakarka oo gaabta iyo in dadka oo dhan ay wada noqdeen kuwa dhegta wax ka maqla indhahna wax ku arka wax intaa ka soo haray sida akhriska ama in ay ka fakaraan ama in gacmaha ay ku qabtaan oo dhan ayay dadkani ka soo horjeedaan waa dad dhagaha iyo indhaha uun ka shaqeeya in badan oo ficilada xunxun oo caajiska hormuud uu u yahay waxa uu qofka uu ka qaadaa aaladda social mediyaha si kastoo social mediyaha dadka qaar aysan ugu arag wax dhiba haddana waxaa la ogaaday brobleemyo badan oo nafsi ah oo nolosheenii la soo gudboonaada in social mediyaha aas-aaska asalka sababtay u yihiin social mediyaha waxa uu bani'aadamka maskaxdiisii u borgaraamiyaa qaab abaalmarin degdega bani'aadamku wax walba ee positive ah marka uu qabanayo ama uu arkayo ama uu akhrinayo maskaxdiisii sida dabiiciga ah waxa ay soo saartaa hormoon diboomiin ah laakiin hadba inta ay la eg tahay ka helitaanka qofka qadar intaa la eg ayay maskaxdiisii soo saartaa tusaale haddii qofka cunto uu cunayo cadadda hormoonka diboomiinka ee maskaxdiisii ay soo saarto iyo qadarka diboomiinka ay soo saarto marka uu qofka uu la joogo lamaane aad uu u jecel yahay isku mid ma aha laakiin mucjisada diboomiinka waxaa ka mid ah bilowgii oo keliya ayuu qofka farxad xaddhaaf ah uu ka helaa xoogaha kadib maskaxdu waxa ay bilowdaa in ay yarayso cadadda diboomiinka ay soo saarto waana sababta
dadka qaar ay u dhahaan waagii hore farxadda aan sheegaa ka heli jiray waqti xaadinkani waxyaabaha qaarkood kama helo. Waxaa la arkay dadka sida aadka u isticmaala alkolada marka uu qofka uu bilow uu ku yahay ama uu ku cusub yahay, waxa uu ka helaa isticmaalka alkolada ama nooc walba oo daroogooyinka ka mid ah farxad xad dhaaf ah iyo jabigiisii oo isbedela. balse qofka marka uu in badan uu joogteeyo isticmaalka daroogada ama waxyaabaha alkolada, waxa uu qofka uu bilaabaa in wax farxada uusan ka helin si kasta uu isticmaalo. waxa uuna qofka intaa kadib uu bilaaba si jabigiisii hore ee farxadda iyo muudkoo isbedela in dib uu u helo in wax badan oo ka mid ah inuu isticmaalo. sidaana qofka isaga oo farxad raadinayo caafimaadkiisii ayuu halis u gelin karaa. shay waliba inta uu qofka uu ku cusub yahay ayuu farxad badan uu ka helaa. muddo kadib qofka waxa uu bilaabaa in shayga uu ku caajiso haddii wax ka duwan shayga balse weg oo maskaxdiisii active ka dhigi kara haddii uusan helin. haddaba qofkuna marka uu buug uu akhrinayo bilowgii motivationka uu akhriska uu la bilaabay nooca uu ahaadaba, muddo kadib hormoonkani marka uu hoos uu uga dhaco qofka dumbaba waxa uu dareemaa caajis iyo in akhrinta buugga ay ku socon kari weyso. xitaa haddii uu isku qasbo isaga oo wax farxada buugga aanan ka helin ayuu akhriska dhammaystaa, iyada oo qofka dib dambe motivation uu buuggu ugu soo laabto isaga oo aanan haysan. waana sababta dadka qaar ay u dhibsadaan in buug oo dhan ay akhriyaan. laakiin social mediaha waxaa algoritmkiisii loo borograamiyey qaab biolojiga bani'aadamka, iyada oo la tixraacayo maskaxda bani'aadamka si qofka social mediaha waqti aad u badan si uu ugu nagaado isaga oo qofka wax caajis ah aanu ku dareemin. waayo waxaa isweydiin mudan qofka in uu awoodo in saacado badan in social mediaha uu geliyo, laakiin waxyaabaha kale ee nafciga leh ee gaar ahaan wax ku soo kordhin kara in waqtiba iska badda 10 daqiiqo xitaa in qofku uu awoodi kari waayo. tanina waa mid ka mid ah problemyada ugu waaweyn ee laga dhaxlay social mediaha, balse dadka badankoodii aysan ku baraarugsanayn. algoritmka social mediaha ugu halista badan waa aaladda TikTok-ga. sababta ay ugu halista badan tahayna gadaal dambe ayaan kaaga faahfaahin doonaa. shirkadaha social mediaha hadafkoodii guud ahaan maadaama uu yahay in dadka waqti badan in ay ku nagaadaan, waxaa qasaba in si toos ah maskaxda bani'aadamka inay ula falgalaan. si ay maskaxda bani'aadamka ula falgalaanna waxaa laazima si joogto ah in maskaxdoodii kicin joogto ah inay ku sameeyaan. maskaxda bani'aadamka qaabka cajiibka ah ee alla uu u sameeyey waxaa ka mid ah qofka marka uu arrin ama shay uu ku caajiso isla durbaba haddii shaygaasi uu iska bedelo maskaxdiisii sidii hore ayay haddana kolkani qofka hormoonadiisii farxadda active ay u noqdaan. tusaale, haddii qofka uu ku daalo shaqo maalintii oo dhan uu qabanayay, haddii isla waqtiga isaga oo daalan barnaamij kale sida isboorti ama waxyaabo kale haddii qofka jabigaa lagu mashquuliyo, durbaba qofka waxaa ka baxo daalkii, kadibna mawjada cusub ee qofka loo shiday ayuu durbabu u leexdaa. sidanina waa sida maskaxda bani'aadamka guud ahaan alle uu u sameeyey. shay qofka marka uu ku caajiso haddii shaygaas shay aanan ahayn, durbaba haddii qofka loo leexiyo maskaxdiisii sidii hore ee farxadda ayay dib ugu soo noqotaa. aaladaha social mediahana algoritmkoodii iyaga oo tixraacayo qaabka maskaxda bani'aadamka ay u samaysan tahay, waxa ay u koodgareeyeen koodadkoodii qaab bani'aadamka ay ku madadaalin karaan. social mediaha qofka marka uu soo galo muuqaalka koowaad marka uu daawado qofka waxaa hoos u dhacayo daqiiqado kadib hormoonka farxadda ee dopamine-ka, kadibna qofka si toos ah halkii looga baahnaa in social mediaha oo dhan inuu ka baxo algoritmka social mediaha durbaba qofka si uusan uga bixin darteedii recommendation cajiiba muuqaal kale ayay qofka ugu xijiyaan si uun qofka maskaxdiisii jabi kale ama muuqaal maskaxdiisii active ka dhigi kara uu u helo. xoogaha qofka marka uu muuqaalka uu daawadana farxad ayuu bilaabaa inuu ka helo. marka uu daqiiqado uu daawado haddana muuqaal kale oo ka cajiibsan ayuu haddana ku sii dhuftaa heer qofka uu kala garan waayo saacadaha tirada badan ee social mediaha uu ku bixiyey. weliba waxaa la arkay muuqaalada nooca dadka badankoodii ay daawan karaan amaba filimaanta noocyada u janjeera ee sida aadka dadku waqti
waqti u gelin karaan. Tusaale, haddii muuqaal sawir aad u kooban ama hal muuqaal oo keliya si joogto ah haddii shaashada la saaro kadibna cod dheer haddii hoosta laga saaro muuqaalkaasi, waxa ay u badan tahay in dadka badankoodii muuqaalka in aysan xiiseynin. Suurtagalna ma aha muuqaalkaasi xitaa algoritmka social media marka laga soo tago in dadku ay xiiseeyaan, laakiin muuqaalka uu ilbiriqsi walbuu iska bedel badan yahay. Yacni muuqaalada sida aadka istuudiyooyinka horumarsan loogu soo duubay ee sida degdeg ah u dhaqdhaqaaqa badan maskaxda bani'aadamka waa kuwa si joogto ah u kicin kara qofkuna, maadaama isbedbedeladani xooga badan ee muuqaalada maskaxdiisii si toos ay ula falgelayaan, ma kala garan karo waqtiga tirada badan ee muuqaalka daawashadiisii uu ku bixiyey. Waayo mar waliba muuqaalka ama sawiradiisii ay kala dhaqdhaqaaq badan yihiin, waa marka daawashada muuqaaladaasina ay kala saamayn badan yihiin. Waayo maskaxda muuqaal joogto ah oo aanan isbedelin amaba daqiiqad kadib muuqaal un isbedela haddii ay aragto durbaba hormoonkani dopamiinka ayaa ku yaraada, kadibna qofka xiisaha oo dhan ayaa ku yaraada. Balse marka muuqaalada isbedbedelkoodii uu kordho, durbaba maskaxdiisii sidiisii hore ayay ku soo noqotaa, iyada oo farxaddiisii wax nusqaan ah aanay ku imaanin. Qofkuna ma dareemo waqtiga tirada badan ee sida social mediaha uu ku bixinayo, maadaama social mediaha farxad sidaa joogto u ah sida muqaadaraadka oo kale hormoonkani farxadda ay kicinayaan. dadkuna hormoonkani la'aantiisii suurtagal maaha hal maalin ama xitaa saacado kooban dadka qaar in social media la'aan ay noqdaan, waayo cagsigeedii qofka waqtiga ayaa ku dheeraada, caajis joogto ah, farxad la'aan iyo cabur badan ayuu bilaabaa inuu dareemo. Dhinac marka laga fiiriyana qofka waxaa ka maqan daroogo kicisa hormoonkiisii si uu motivation yar uu u helo. Waa qof la qabsaday isticmaalka daroogo, balse maalinta uusan daroogadu helin ama ay ka maqan tahay, waqtiga oo dhan ayaa ku dheeraada. Waxa uu kala garan waayaa maalinta wixii uu qaban lahaa. Waayadii u dambeey aaladaha social mediaha, aaladda sida aadka sare ugu kacday waa aaladda TikTok-ga. TikTok waxa uu aaladaha kale ee social mediaha uu kaga duwan yahay waa muuqaal bandhigista. Aaladaha kale ee social mediaha inta badan waxa ay xoogga saaraan in qofka ay soo hordhigaan, gaar ahaan dadka uu falowgareeyo ama muuqaalada asxaabtiisu ay daawadeen, amaba laga yaabay beejadka asxaabtiisu ay ku xiran yihiin, lagana yaabay in isagana uu daawan karo amaba uu jeclaan karo, ayay isku dayaan aaladaha kale ee social mediaha in dadkay u soo bandhigaan. Waana sababta dad badan ay ugu adkaatay in Facebook ama YouTube in si degdeg ah iyaga oo aalad kale aanan isticmaalin in caan ay ka dhex noqdaan, sababtoo ah shirkadahani algoritmkoodii ma ogolo in sare uu u qaado qof waliba ee muuqaal soo geliyo ama qof waliba ee barahoodii bulshada ku soo biira. Laakiin TikTok waa uu ka duwan yahay, walibana waa uu ka cajiibsan yahay aaladaha kale ee social mediaha. TikTok uma kala socna muuqaalka uu dadka uu tusayo ugu horeyn in qofka uu falowgareeyo ama in kale. Waxaa dhici karta weligaa qof aadan falowgareynin ama aadan aqoonin in muuqaalkiisii TikTok-ga hortaadii in uu ka soo baxo. Waana sababta TikTok maanta ay u sahlan tahay in malaayiin followers ama in ka badan in si degdeg ah qof inay ku soo xirmaan. Laakiin systemkani aaladaha kale ee social mediaha kama jiro. Waxaa dhici karto in aad aragtay tirada like ama daawasho ama follow ee qof aaladaasi TikTok-ga uu ku heli karo in uusan ku heli karin, ama ay aad ugu adag tahay in aaladaha kale ee social mediaha inuu ku helo. Micnaheeduna ma aha in dadka TikTok ay u badan yihiin, farqigu waa algoritmkoodii ayaa kala duwan. Waxaase ka sii daran TikTok in caan uu ku yahay muuqaalada aadka u gaagaaban, waana muuqaalada la daawado kuwoodii ugu halista badan. Bani aadamku isaga oo awalba abuuristiisii hore ee dabiiciga ay ahayd mid degdeg badan, haddana TikTok waxa uu dadka uu la qabadsiiyaa mekanismka abaalmarinta degdega. Si xawliya qofka muuqaal yar oo dhowr ilbiriqsiya kadibba marka uu daawado waa uu ka gudbaa midba midka kale sida uu qofku ugu xirayo. Ugu dambeyn qofka waxa uu arkayaa isaga oo saacad wax ka badan halkaa ku qaatay. Muddadani muuqaalada gaagaaban ee qofka uu dhex wareegayana sida saacad oo kale maskaxdiisii si joogto ah ayay u kicinayaan, muuqaalba muuqaalka xiga. Muuqaaladani gaagaawanna
dunida oo dhan ayaa laga wada arkay sida joogtada ee maskaxda qofkay u madadaalinayaan heer shirkadihii waaweynaa ee dunida iyaguna ay bilaabeen in applicationkoodii shorts inay ku soo daraan weliba iyaga oo isticmaalayo recommendationka TikTok oo kale marka uu qofka Facebook ama YouTube uu ka daawanayo muuqaalada shortska muhiim ma aha qofkaasi in aad ku xiran tahay ama in kale wax waliba waxay isku dayaan in ay ka soo hor saaraan waliba muuqaalada sida aadka loo jeclaaday ayay ku dadaalaan in ay dadka tusiyaan haddaba qof madadaala ahaan la qabsaday waxyaabo kooban oo degdega durbaba midba midka kale uu kaga gudbi karo aad ay ugu adag tahay waxyaabo dhaadheer in qofka uu u dulqaato ama in qofka waxyaabo wax motivation ama waxyaabo maskaxdiisii aanan kicinin in waqti uu geliyo nolosha caadiga marka la fiiriyana waxa uu qofka uu bilaabaa in shaqadiisii xitaa in uu naco xoogaha kadibna shaqo kasta waxa uu qofku u arkaa wax dhib badan oo rafaad iyo silac laga maro wax waliba ee juhdi lagu bixiyo oo dhanna ayuu qofka ugu dambayn uu kiraahsadaa in uu qabto laakiin nolosha dabiiciga ee adduunka oo dhan systemka ay ku shaqayso waa dulqaad adkaysi sabar iyo shaqo badan laakiin dadka problemkani dopamine-ka ee social media uu haysto noloshoodii oo dhan wax aanan social media ahayn raaxo kama ay helaan heerka qofka shaqadiisii noloshiisii caafimaadkiisii xitaa social media ay ku xiran tahay maalinta uu ka ciladoobo ama akoon uu ka xayirmo qofka sida in uu dhintay oo kale ama qof ay nolosha oo dhan uga dhammaatay meel uu ka bilaaboba aanan garan karin oo kale ayuu noqdaa dadka badankoodiise psychologiga noocani oo kale aad ay ugu adag tahay in ay fahmaan sababaha aaladda TikTokna sare ay ugu kacday welibana dadka badankoodii TikTok ay ugu tilmaamaan meel halisa si kastoo laga yaabay dadka qaar akhlaaq xumo amaba muuqaalada dadka qaar ay soo gudbiyaan ay ula qumanaan kan weyso haddana algoritmka TikTok ee aad u halista badan sida gaarka ahna maskaxda bani'aadamka la falgalayo waa mid ka mid ah qaybaha aanan laga hadlin ee TikTokana sare in uu u kaco door weyn ka qayb qaadatay nidaamkani algoritmka in qof waliba muuqaal waliba iyada oo aanan la fiirinin in uu falowgaray ama in kale in hortiisii la soo dhigo waxaa la sheegay in Facebookana uu doonayo in applicationkiisii uu ku soo darsado haddaba haddii aad isku aragto taxadar la'aan ama in wax waliba si degdeg ah inaad ugu caajisto problemkaadii waa social media haddii social mediaha saacado badan adiga oo ku bixinaya wax problem ahna aanan kala kulmin sababtoo ah shirkadaha waaweyn ee social mediaha kama ay fakarayaan qofka caafimaadkiisii iyo noloshiisii iyaga agtoodii waxaa muhiim ka ah waqtiga kooban ee sida joogtada abkoodii si active aad u isticmaasho aad ay u adag tahay casrigani in social mediaha laga fogaado laakiin waa in qof waliba uusan u ogolaanin aaladaha social mediaha in noloshiisii dhabta ay hilmaansiiso amaba in qofka habdhaqankiisii ama heerka taxadarka maskaxdiisii in social mediaha uu programmiyo waxaana la arkay iska xakamaynta social mediaha ama uu isticmaalida wadada saxan in caafimaadka qofkay u wanaagsan tahay waxyaabo badanna in qofka uu ka kororsan karo maanta waxaa jiro dad si toos ah daroogooyin ama muqaadaraad u isticmaala waxaana sidoo kale jira dad si aanan toos ahayn social mediahaba muqaadaraad uu u yahay la'aantiisuna aanay noolaan karin wadada problemkani oo dhan qofku uga xoroobi karana waxaa lagu sheegay marka laga soo tago teknikyo badan ee qofka noloshiisii uu ku tababari karo waxa ugu saameyn badan in qofka uu ka war helaba sida maskaxdiisii iyo hormoonadiisii algoritmkani social media ay ugu ciyaarayaan haddii qofka uu ogaado uuna barto habkani in maskaxdiisii loola falgalayo waxaa aad u sahlan in qofka in iskiisii uu isku xakameeyo uuna ogaado waxyaabaha ku riixayo in badan social mediaha uu ku nagaado laakiin haddii qofka waxyaabahani oo dhan uusan ogeyn ma ogaan karo halka problemkan uu uga imaaday waxa uu arkaa wax uu alle uu ku abuuray laakiin sida asalka waa dhibaato meel kale uu ka soo qaaday laakiin qofka haddii uu ogaado fahmana sida applicationadani maskaxdiisa ula falgalayaan waxaa sahlan
sahlanaan karto in qofka si degdeg ah inuu isaga dhaafo, laakiin in qofka naftiisii in uu xakameeyana waa problem kale oo aad u dhib badan. waayo qofka waxa uu durbaba u baahnaanayaa haddii social media uu iska xakameeyo waxyaabo kale ee maskaxdiisii farxad u keeni kara. booska social mediaha waxyaabaha qofka farxadda u keenana waxa uu ka dhigan karaa waxyaabo waliba ee isaga u arko in isaga nafci uu ka helayo. tusaale, waxaa jirta oraah caana haddii qof uu qabanayo shaqo uu aad u jecel yahay farxadna uu ka helayo cimrigiisii oo dhan, haddii qofka uu shaqeeyo lama oran karo hal maalin ayuu xitaa qofkaa shaqeeyey. waayo qofka haddiiba shaqada uu ka helay motivation, farxad iyo nashaad iyo firfircooni, suurtagal ma aha waxaasi in lagu tilmaamo shaqo. qofkuna waxyaabaha isaga nafci u leh haddii uu ka dhigto waxyaabo isaga farxad uu ka heli karo, waxaa sahlanaanaysa xilliga in qofka uu noqdo qof tayo badan oo waqtigiisana si positive ah u isticmaala. tijaabada mekanismkiisa abaalmarinta degdeg ah ee dadka badankoodii social mediaha ay ka dhaxleen ayaa waxaa lagu sameeyey jiir ayaa madaxiisu waxa ay saynisyahanada ku xireen qalab, kadibna jiirkaasi mar walba ee batoon uu taabto maskaxdiisii waxaa la suurtageliyey in ay soo saarto hormoonka dopamine-ka. hormoonkani dopamine-kana xayawaanada sida bani'aadamka oo kale ayay iyaguna farxad iyo nashaad ay uga helaan. jiirkaasi sida gaarka ah maskaxdiisii qalabka loogu xiray mar walba ee batoonka uu taabto, sida in social mediaha uu ku jiro oo kale, madadaalo, farxad, isaga oo dhan nashaad ayuu dareemaa. waxaa la arkay jiirkaasi jiiranka kale ee tirada badan ee uu ku dhex jiray in uu si gaar ah uga baxay, ayuu mar waliba batoonkaasi ayuu bilaabay si joogto ah inuu u taabto. batoonkaasi heerka taabashadiisu heer xitaa waxa uu gaaray cuntada in uu iloobo, in uu hurdadiisii xitaa uu iloobo si uu farxad u helo in batoonkaas si joogto ah uu isticmaalo. marka uu aad u gaajoodo maskaxdiisuna ay xamili kari wayso in ay soo saarto hormoon aad u badan oo dopamine, waxaa la arkay jiirkaasi in uu noqday asocial, mid si gaar ah ka dhex baxsan jiirka kale. meel ayuu isaga oo kaduudsan oo sida in uu niyad jabsan yahay oo kale ah ayuu meel si gaar ah u tagay. marka cunto fadhigiisii loogu keenayna active ayuu dib u noqday, waxa uu bilaabay in cuntadaasi uu cuno. isla booskaasi ayuu ka bilaabay in batoonkaasi uu taabto si uu farxad u helo. ugu dambeynna ilaa jiirkaasi uu ka suuxo batoonkaasi farxadda uu ka helay ayuu taabanayay. ugu dambeynna waxaa halkaas saynisyahanadu ay ka fahmeen bani'aadamku haddii uu isku lamaaniyo waxyaabo si degdega farxad uu ugu heli karo amaba isaga madadaalin karo in uu waqti badan uu geliyo, sida jiirka oo kale qofka waxa uu iloobaa xilligiisii hurdada, waxaa ka qaldama jadwalkiisii cuntada, waxyaabo badan oo noloshiisa ka mid ah, haddii ay noqoto isu soo dhexgalka dadka, haddii ay noqoto in qofka noloshiisii ama mustaqbalkiisii in uu samaysto aad ay ugu adkaataa. waayo sida jiirka oo kale isaguna waxa uu qofka mar walba u baahan yahay in batoon uu taabto ama social mediaha wax un farxad uu ka heli karo ama wax un muddo kooban uu isku madadaalin karo in waqtigiisii uu geliyo. laakiin haddii qofka waxyaabahani oo dhan uu ogaado uuna fahmo faa'iidada ay leedahay dopamine-ka oo laga soomaa, waxaa sahlanaanaysa in qofka social mediaha oo dhan xitaa inuu iska dhaafo. laakiin casriganina in social mediaha layska dhaafo maadaama halis kale ay leedahay, ugu yaraan qofka waxa uu isticmaali karaa si positive ah oo madadaalo iyo waxyaabaha qiimaha aanan lahayn oo dhan uu kaga fogaan karo.